soo noolaashada wejiga cusub ee Soomaaliya ayuu matalayaa marxalado waqtiyo badan ayuu soo qaatay sidoo kale garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay hay'adaha ugu muhiimsan dalka dhinac walba gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waxaa la marayaa horaanta sanadka 2015 Soomaaliya ayaana wado cusub cagta saartay garoonka diyaaradaha sanadkan waxa uu la jaan qaadayaa weji ka bedelan sidii hore kadib dhismo cusub oo lagu hirgeliyay terminalka cusub oo ay dhistay shirkadda Vivori ee laga leeyahay wadanka Turkiga waxayna arintaasi ku timid heshiis ay dawladdu la gashay shirkadaasi sanadkii 2013 inkastoo weli ay socdaan howlaha dib loogu dhisayo hagaajinta qaybta cusub ee garoonka diyaaradaha oo leh qaybo kala duwan oo mid walba ay bixiso adeeg u gaar ah inta aan gudaha u galin sharaxaadda adeegyada gudaha ay qaybta cusub waxaa si maalinle ah garoonka u yimaada diyaarado caalami ah kuwaas oo keena dad isugu jira Soomaaliya janib fursadaha adeeg bixinta dadka ka soo dega garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho waxaa ka muuqda isbedel weyn oo xirfad iyo aqoon ku saleysan sida ay ku hawlgalaan garoomada kale ee adduunka shirkadda Turkish Airlines hadda waxay ka mid tahay shirkadaha diyaaradahooda ay sida joogtada ah u yimaadaan caasimada Soomaaliya garoonka ku yaala waxa ayna meelo kala duwan ka keentaa dad Soomaaliyeed oo danahooda u soo aada muwaadin ama ajaanib haduu yahay waxaana si qiimo badan u soo dhaweeyay shaqaale u diyaarsan hawshaasi iyadoo dadka ka soo dega durbaba ay helaan adeeg u dhigma midka ay kala yimaadeen wadamada ay ka soo tageen qaybtan waa qaybta wejiga cusub ee Soomaaliya matalaysa waa garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho waa terminalka cusub ee shirkadda Vivori ay dhawaan ka hirgelisay garoonka Aadan Cabdulle ee Muqdisho qaybta banaanka waxaa hadda ku sugan dhowr diyaaradood ay ka mid tahay diyaaradda Turkish Airlines kuwaas oo keenay dad meelo kala duwan oo ka yimid sidoo kale waxaa garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho dibadiisa ama qaybta banaanka ka socda adeegyo kala duwan oo dadka lagu qadimayo kuwaas oo doonaya in dalka ay dibadda uga baxaan iyo kuwa dalka dibadiisa ka soo laabtay waxaana arintan ay muujinaysaa wejiga cusub iyo horumarka cusub ee Soomaaliya ka socda xilligani markii aan gudaha u galay qaybta caalamiga ee adeeg bixinta oo ay dadka ka baxaan waxaa ku sugnaa dad Soomaali u badan oo sugaya bixitaan meelo kala duwan waxaana wajigooda marka aad eegto ka muuqday deganaansho iyo farxad ay ku abuurtay qaybta cusub ee garoonka lagu soo kordhiyay oo ay ka heleen dhammaan adeegyadii ay u baahnayeen dadkaasi qaarkood ayaan si hoose ula sheekaystay kadibna sheekada ila wadaagay si toosa waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u safraya magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaan arkaa isbedel weyn oo horumar leh oo Soomaaliya ay gaartay ayuu hadalkiisa ku bilaabay muwaadinkan magacayga waa Cabdullaahi Cabdixakiin Suxulay hadda waxaan ku sugnahay airportiga Aadan Cabdi International Airport magaalada Muqdisho waxaan u baxayaa Uganda dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala wallahi isbedel waa uu jiraa hadda waxaan fadhiyaa ku sugnahay qaybta cusub oo dhawaan la furay qaybtan meesha waitingka oo diyaaradda lagu sugo aan hadda ku sugnahay ka hor qaybtii hore oo halkan aad bay uga duwan tahay qalabka tiknoolajiyada alaabta taal si u samaysan tahay marka la fiiriyo aad iyo aad bay uga duwan tahay runtii waa airportada casriga hadda adduunka ka shaqeeya amal weyn waxyaabo badan baan kula kulmay intaan halkan joogay oo ka duwan sida uu ahaa qaybta hore oo airportiga hore kadib markii aan halkan nimi meeshan cusub oo aan ka soo gudubnay qaybta hore oo aan awal hore u arki jirnay halkan waxyaabaha ku cusub waxa weeye adeegyo fiican oo tayo leh oo kuwii hore ka duwan baa laga heli karaa baan dhihi karaa halkan oo ay kaga duwan tahay meesha hore dhinaca adeega waxaa ka mid ah howlaha xaqiijinta amniga gudaha qaybta cusub oo loo adeegsanayo qalab ku shaqeeya electronic si ay u sahlanaato baarista qalabka iyo dadka doonaya in ay u safraan dalka dibadiisa ama dalka ay ku soo laabtaan ma arkin wax isdhaxyaaca oo howl walba meesha loogu talagalay ayaa lagu meeleeyay waxaan xasuustaa in marar badan ay ku dhaceen qaladaad ku yimid adeeg yarida ka jirtay xilligii hore garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta lagu soo dejiyo boorsooyinka miisaanka leh hase yeeshee arintaasi wax ka bedelan ayay indhahigu qabanayeen
oo qof walba waxa uu halkiisa ku sugayaa boorsadiisa oo uu u keenayo mashiin loogu talagalay soo qaadida boorsooyinka dadka garoonka isticmaalaya. Dadka halkaasi ku sugnaa ee hawshooda watay waxay ahaayeen kuwo aad ugu faraxsan arrintan. Isbeddelka dhacay ee ku yimid garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho waxa uu soo celiyay xasilooni loo baahnaa iyo waddo cusub oo u furantay dadka dalka iyo martida ina soo booqanaysa. waxa uu ahaa hadalka mid ka mid ah muwaadin Soomaaliyeed oo ka ambabaxayay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee Muqdisho. Magacaygu waa Cumar Cabdulle, waxaan ku suganahay qaybta cusub ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Airport. Waxaan ku aragnaa meesha adeeg fiican oo maartay shacabka loogu adeegayo. haddaan ka bilaabo banaanka ammaanka soo habaysan yahay qaybta soo qaybta alaabta lagu soo qaato sida gaariyaalka iyo alaabo cusub sida airportka adduunka kale. waxaan ku aragnay mashiinadii alaabta lagu baarayay oo security-ka ka qayb qaaday. waxaan ku aragnay soo dhaweyn wanaagsan oo aad nool soo dhaweeyay. marka waxaan dhihi karaa aniga waa mowduuc fiican oo aad u wanaagsan oo horumar ah. waa tahay hadda sharuudihii lagaaga baahnaa intaada bixin ka hor dhammaantood waa soo martay. halkan waxaad ku sugaysaa diyaaraddii aad ku bixi lahayd. halkeed u socotaa maanta? waxaan u jeedaa aniga Uganda u jeedaa. ka horna waxaan ka imaday Dubai ka imaday bacda 5 biri ka hor Dubai ka imaday. marka waxaan ka soo degay qaybta horan ka soo degay. hadda waxaan ka baxaa qaybta cusban ka baxoohaya. marka wallahi ijraa'aadka aan meesha ku arkay iyo wax aad u fiican waay. si fudud ayaan lagu soo dhameeyay hadda waxyaabaha aan u baahnay oo laga baahnay safarkayga. waa tahay runtii maadaama maanta fursad u heshay in qaybtan cusub aad ka baxdo oo ah qayb runtii aad iyo aad casri looga dhigay. dadka kale ee Soomaaliyeed iyagana aan maanta fursad u helay in halkan ay ka baxaan iyo kuwa kale ee dibadaha jira maanta maxaad u sheegi kartaa? waxaan u sheegi karaa in meesha horumar ballaaran uu ka jiro oo wadankii horumar uu ka jiro khaasatan hadda airportka sida ammaankiisa maartay mashiinadii ka shaqeeyay ammaanka maartay imkaanaadkii ka jira airportada adduunka inay ka jiraan oo sida aan arkay hadda basas lagu soo qaadayo dadkii airportka lagu keenayo annagana hadda saaka ijraa'aadkii si fudud ayuu nagu soo dhameeyay sidii airportada adduunka ka jirta. inkastoo shaqada ugu badan ay ka socoto labada qaybood ee kala ah qaybta caalamiga ah iyo qaybta gudaha, haddana waxaa dhisan oo diyaarsan qaybta dadka gaarka ama madaxda ee VIP-da garoonka Aadan Cabdulle. mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaan si lama filaan ah isaga oo sagootinaya dad asxaabtiisa ah kula kulmay gudaha garoonka Muqdisho kuna faraxay laba arrimood oo ahaa shaqada aan garoonka u tagnay iyo quruxda aan ku wada aragnay. si kooban ayuu u yiri. maanta waxaan joognaa airportkii Aadan Cabdulle Cismaan qaybtii cusbeed ee la furay. waa markii ugu horreysay halkaan imaado anoo sagootinaya dad. markii labaad ee haddana muxuu ahaa aan ka soo degoon markii ugu horreysay ahayd. dabcan isbeddel weyn ayaa la dareemayaa. meesha hadda aan joogno waa qayb loogu talagalay dadka dibadda u baxaayo internationalka aadayo meeshii ay ka bixi lahaayeen. qaybta dusheenna ku aadan immigrationkii horteenna waxaa waa qaybtii muxuu ahaay luggage-ka iyo tikidhadii wixii laga qaadanayay. dabcan jawi aad iyo aad u qurux badan oo standard heer caalami ah yaan arkayaa iyo muuqdo. waana wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo. sidoo kalena walaalihii Turkida ahaa ee hawshan sameeyeyna aan oga mahad celinayno ay ku mahadsan yihiin. waxa ay muuqanay waxaan arkayaa dabcan bixitaanadii hore intaan la furin ka hor culays badan ayaa jiray. waxyaabaha hoos ku arkay waxaa ka mid ah dadka localka ama gudaha ah ee waddanka gudihiisa u safraaya meel ay ka baxayaan, meel ay ka soo degayaan ay ka imaanayaan. dadka dibadda u baxaayo meel ay ka soo degayaan, meel kale muxuu ahaay ay ka baxayaan. wixii oo dhan way kala baxsan yihiin. dadka shaqada garoonka wada gaar ahaan howlaha ugu muhiimsan waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho. waa mid ka mid ah fursadaha ugu qaalisan ee muujinaya sida horumarka dadkeenu ay uga wada faa'iideysan karaan. garwaaqso sida garoonkan quruxda badan iyo adeeg bixinta badan u soo jiidanaya qof walba oo fursad u hela in uu ka dhoofo ama uu ka soo dego. laakiin waxaa muhiim ah in aan xisaabino horumarka dalkeenu uu gaaray iyadoo meelaha dalka laga qiimeeyana ay ka mid tahay halkaani soo nooleynta adeegyada dadweynaha sida garoomada diyaaradaha iyo wixii la midka ah. si loogu baraarugsanaado arrintaasi ayaan idinla wadaagnay macluumaadka ka hadlaya isbeddelka cusub ee garoonka Aadan Cabdulle ee Muqdisho. kumana eka dhismaha intaan oo kaliya oo weli waxaa socda dhismooyin kale oo lagu soo kordhin doono garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, taas oo kor u qaadi doonta ididiilada iyo farxadda dadka Soomaaliyeed ay ka helaan adeega garoonka uu bixin doono.
faysal muuse maxamed SNTV muqdisho.